qiso aad u xanuun badan. Qisooyinku way kala xanuun badan yihiin, wayna kala dhib badan yihiin. Mid baa laga yaabaa inay ku soo marto aad u xanuun badan, qalbigaagana aysan ka go'in weligiisa. Mid baa laga yaabaa inay ku soo marto aad iska ilowdo bilooyin kadib. Laakiin qisadani waa qiso aad u xanuun badan, qof dhan noloshiisa halis gelisay. Gabar ka mid ah dadkan ugu taxan ayaa hadalkeeda ku bilowday: dartiisa ayaan xashiish u cabay, ilmahaygii isaga soo xaaqay, laakiin wuxuu igu sameeyey wax aanan marnaba ka filanaynin. Intaanan muuqaalka gudaha u galin ama qisada aanan bilaabin, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto channelkeena, like garayso, siina share garayso si aan u helno saaxiibo badan oo sidaada oo kale u wanaagsan. Waxay ku bilowday qisada gabadhani sida tan: waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, waxaan jeclaaday wiil aan isku jaamacad ahayn. Wuxuu wadan jiray mooto, waxa uu ahaa qof degan oo maasha Allah ah, Rabbina uu dhaliyay soo jiidasho gaar ah. Waan wada xiriiri jirnay, inkastoo aan u sheegan jacaylka aan u qabo. Waxa uu ahaa qof balwad leh oo sigaar caba. Maalin ayaa waxaan dhahay, ma sigaarka iska daysid? Laakiin muxuu sameeyay oo igu dhahay markaan sidaa dhahay? Wuu ibaloog gareeyay markaan saas dhahay. Anigana maalin annagoo jaamacadda joogno ayaan dad hortiisa ku dhahay, waxaad tahay qofka dunida ugu foolxun oo aan nolosheeda arkay. Waan ku necbahay anigoo aysan iga jirin niyadda ama qalbiga, laakiin ciil iyo xanaaq aan u qabay ayaa iga keenay hadalkaasi. Waxay ahayd markii igu horeysay aan qof jeclaado ama jacayl u qaado, mana garanaynin sida aan u sheegto. Taas ayaa igu sababtay inaan waxa aan dareemayo u sheegan waayo. Wax kale oo jirtay saaxiibadayda oo igu dhiirigelin jiray mar walba rabitaankiisa, oo igu dhihi jiray, sheego jacaylkaaga, waxaad u qabto qofkani ha ka qarsan. Waxaa laga yaabaa inuu ku aqbalo ama uu ku diido, laakiin mar walba waxay ii rajaynayaan ama ay igu dhahayeen, u sheego, waad guulaysanaysaa, wuuna ka aqbali doonaa. Waxaan dareemay markaan daraaseeyey wax badanna ka fiiriyey inuu jecel yahay gabdhaha xunxun. Waxaan isku dayay inaan galo gabdhaha noocaasa ama yeesho dhaqanka gabdhaha xunxun si aan qalbigiisa u soo jiito una hanto jacaylkiisa. Laakiin maxaan sameeyey? Waxaan dhumiyey gabarnimadaydii, waxaan yeeshay uur, waxaan sameeyey inaan iska soo xaaqo uurkii. Waxaan galay waa laba dembi. Mid waxay tahay gabarnimadaydii ayaan waayey, ilmahaygii igu horeeyey ama uurkii igu horeeyey aan qaaday ayaan iska soo xaaqay. Waxaan bilaabay inaan cabo xashiishad. Waxaan sameeyey wax kasta oon islaa waad ku soo jiidan kartaa isagii. Laakiin maxaa dhacay? Wax walba oo uu sameeyey beddelkiisa muxuu igu beddelay? Laakiin weli waan heli waayey waxaas dhan oo aan sameeyey. Hadda waxaas oo idil waan iska daayey. Waxaan dib ugu soo noqday dhaqankaygii wanaagsanaa kadib markii aan ku guuldarraystay dartiisa aan wax walba u sameeyey. Hadda waxaas oo idil waan iska daayey sababtoo ah qofkii aan waxaas dartiisa u sameeyey ayaan waayey oo aan hanan waayey qalbigiisa. Waxaan dib ugu soo noqday dhaqankii wanaagsanaa, salaadihii sidoodii ayaan u dukadaa. Waxaa ii ogaaday waalidkayga oo ila hadlay, waxna ii sheegay. Waxaan dhammaanba loo geereeyey nimankii dhaqanka xumaa ee aan bartay inta aan xaaladaas ku jiray. Allahna cafis ayaan weydiistay. Inkastoo weli aan jeclahay, maalin kastana waan ka fakaraa, isaga aad buu ii necab yahay anigoo wax walba dartiisa u samayn jiray si aan qalbigiisa u soo jiito. Waxaan ka cabsanayaa inuu dareemi waayo jacaylka aan u qabo. Waxaan ka cabsanayaa hadduu naag kala guursado inaan naftayda isdhaafiyo. Meel walba aan kala xiriiro wuu iga baloog gareeyey. Ugu dambayn waxaan talo iyo duco weydiisanayaa qof walba uu muuqaalkani soo gaaro. Waxaan kaa codsanayaa inaad taladaada saliimka igu caawiso inta aad ilaantid walaalkayga ama walaashaydiyey. Waxaan kale oon kaa codsanayaa inaad ii ducayso si uu Allah dembigayga u dhaafo, noloshayduna igu noqoto mid qurux badan. Ugu dambayn gabadhii ayadoo hadalkeedii soo gabagabeynaysa ayaa waxay tidhi, wallaahi waxaan ogaaday qofka aad jeceshahay inaad wax walba u samayn kartid, dhib walbana u mari kartid. Laakiin aniga wax walba iyo dhib walba iyo xumaan walboon u sameeyey dartiisa waan waayey oo ma helin. Laakiin weli waxaan ku fikirayaa sidii aan mar kale qalbigiisa u hanan lahaa ama aan u noqon lahaa xaaskiisa xalaasha ah, sababtoo ah qofka aad jeceshahay marnaba kama qoosatid wax walba oo kugu dhaco. laakiin weli waxaan u baahanahay taladiina, ducadiina si Allah meesha khayrku uu ku jiro uu ii waafajiyo.